Bismillahirrahmanirrahim. Kulan haboon daawadayaal ku soo dhawaada qubanaha xaqiiqda wararka caalamka iyo waliba Soomaaliya. Qaybtan waxaan ku eegi doonaa talaabada culus iyo waliba hanjabaadda waqtigan qaybo ka mid ah wadaadada shaacida ee Iran ay dirayaan iyo waliba sidoo kale waxaan eegi doonaa Sacuudi Carabiya kaalin shidaaleed oo muhiim ahayd oo gantaal lagu dhuftay. Haddaba Iran talaabada ay u qaadayso dhammaan dalalka Mareykanku sida weyn ay ugu shakisan tahay ama xarumihiisa militariga ay sida weyn ugu beegsanayso oo si xoogaysanaya. sidoo kale wakaalada wararka ee Axios ayaa iyana markaas xaqiijisay in Netanyahu 23 Febraayo markaas telefoon uu ku hadlay Donald Trump si weyn markaas saameyn ugu imaaday iyo waliba xilligan cabsi xoogan oo soo fosaartay. haddaba maxay yihiin talaabooyinka markan Netanyahu u furan inuu qaadi doono? waxaan sidoo kale isla eegi doonaa marxaladaha kala duwan ee waqtigan hogaamiyaha cusub ee Iran iyo waliba talaabooyinka loo qaaday sidii gebi ahaanba lagu soo afjari lahaa. maxay ahaayeen dhinaca kale senatarka sida weyn markaasi u sheegay in kulan albaabada ay u xiran yihiin Congress-ka Mareykanku iyo waliba kooxda Trump ay si weyn ugu guuldareysteen inay kaga hadlaan doorka xabad joojinta. waxaan sidoo kale eegi doonaa Iran gebi ahaanba way diiday wax la yiraahdo xabad joojin iyadoona sheegay ilaa lagaga soo aaro dilkii Ayatollah Ali Khamenei aan waxba la joojin doonin qodobadaasi iyo waliba wixii kale nagu soo kordha Sacuudiga ciyaarihii Cristiano Ronaldo gebi ahaanba isaga cararay iyo markaas xujayda halkaas joogto cabsi weyn soo fosaartay inay dib ugu soo laabtaan ay qorsheenayaan. intaas ayaan rabaa saaxiib halka ku qaadaligno soo dhawaada markuu horeysa ku soo dhawaada Shariif Show. waxaan markuu horeysa idin ka dalbanayna muuqaalka like saaxiib meel dheer ayna gaarsiinaysaa no like garee subscribe-na channelka ku soo biro ka mid noqda saaxiibadana sas joogtada inuu xiran wararka caalamka iyo dibadda halkan aan ku qaadaligno maasanidin soo dhawaada saaxiib. laba ilo wareed oo Tehran oo ku sugan ayaana sheegay in Reuters oo markan mujtam Khamenei la yiraahdo oo wakiilka waa wiilka Ali Khamenei oo markaas ka badbaaday mawjadii weerarada Israa'iil iyo waliba Mareykanku ay ku qaadeen Tehran oo ay markaas galaafatay nolosha hogaamiyaha muhiimka u ahaa. xogtan oo ay markaas sheegaysaa in mujtam ay markaas hay'adda awoodda u leh Iran ay u aragto musharaxa ugu muhiimsan oo bedeli doona aabihiisa iyo waliba hogaamiyaha sare ee dalkaasi. waxaan ilaa hadda wali la warinayaa in Iran talaabooyinka dabcan markaas xabad joojinta gebi ahaanba ay diidantahay oo aan marnaba la aqbali doonin. waana waxayna ku tilmaameen in ilaa laga argoosto hogaanka sare la dilay mid la mid ah laga soo dilana aan markaas joogsi ahaan aan yeelan doonin dagaalka ka dhanka ah bariga dhexe gaar ahaan Iran oo muddooyinkii ugu dambeysay weyn markaas uu la kulmaysay duqeymo aad u xoogan goobihii shidaalka, goobihii waxbarashada, goobihii caafimaadka iyo waliba xarumaha militariga. inkastoo ilaa hadda wali markaas weeraradu dhankeedu ay ka wado haddana waxaa muuqata wada hadallo badan in loo soo diray laakiin gebi ahaanba markaan wixii ka soo kordha qubanayaasheena kale aan ku qaadalay. dhinaca kale Sacuudiga ayaa maanta meel kaalin shidaaleed si weyn Iran ay ugu duqeysay kadib xilli Mareykanku si weyn halkaas isku aruurinayay. waxaana la warinayaa dadka ku nool halkaas in cabsi xoogan markan ay soo food saartay taasi oo la tilmaamay xitaa shakhsiyad ciyaaryahanno caanka ah Cristiano Ronaldo iyo waliba ciyaaryahanno kale gebi ahaanba isaga cararay kadib xilli duqeymaha ay si weyn halkaas ugu soo xoogaysteen iyadoona la tilmaamay ilaa haatan in wali markaas duqeynta halkaas ka dhacday saameyn xoogan ay ka dhalatay. Kuwait, Qatar iyo waliba meelo far badan ayay Iran gantaaladeeda ku dhufatay oo waliba ay si weyn ay ugu isha ugu haysay in Mareykanku si weyn ugu dhuumalisanay inkastoo aanan wali si rasmi ah markan shaac ugu qaadin deegaanada ay sida ama dalka sida tooska u beegsan doonto inay qayb ka ahaan doonaan. inkastoo hadda kaliya ay markaas weeraradeedu ay ku ekaayeen meelaha sida weyn markaas ay ugu shakeysan tahay in Mareykanku uu ku dhuumalisanayo. dhinaca kale wakaalada wararka Axios ayaana sheegtay in Netanyahu uu 23 Febraayo telefoon uu kula hadlay Donald Trump isagoo u sheegay xog sirdoon oo muhiim ah oo muujinaysa in hogaamiye sare Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo waliba la taliyayaasha sare ay qorsheynayeen kulan hal meel ah oo subaxii Sabtida ay. warbixintu waxay markaas tilmaamaysay in wicitaanka uu noqonayo daqiiqado muhiim ah oo waliba ugu horseeday go'aanka weerarada ee dalka markaas ka dhanka ah Iran. hadda bariga dhexe oo markaas dhani saameyn weyn ay ku yeelatay inkastoo Netanyahu hadda la tilmaamayo in cabsi aad u xoogan soo fosaartay kadib xilli Iiraaniintu iyo waliba Xisbullah oo isbeeysanayo weeraradooda si weyn markaas ay uga qayb qaadanayaan duqeynta ka dhanka iyo waliba dhibaatooyinka ugu weyn ee waqtigan markan ay fooda ay soo saartay. waxaan ilaa hadda wali markaas la warinayaa in gebi ahaanba markaas weerarada
ay si weyn u sii xoogeysanayaan. dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaan markaasi ku dhaliilay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump habka uu markaasi loo maareynayo wada xaajoodada nuclear-ka ee Iran iyo waliba sidoo kale quraaciyada habka waliba fogaan aragga diblomaasiyadeed. aragtida oo markaasi si weyn looga maldahay ayaana lagu xusayaa in saameyn xoogan ay ku yeelan karto. waaga wanaagtaas qubnaad kala socotaan Shariif Show saaxiibeel janalka subscribe ku tuura like saaxiibada meel dheer ee gaarsiinaysa meel loo gaarsiiyo.